xildhibaan maxamed abuukar jacfar oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka dowladda Soomaaliya ee ka soo jeeda Galmudug iyo cutubyo ciidan oo isugu jira kuwa dowladda iyo kuwa deegaanka oo hogaaminaya ayaa soo gaaray degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan kuwaas oo safar dhanka dhulka uga soo kici timay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan. Safarka xildhibaan Jacfar waxaa qayb ka ah oo ku weliyay gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Korneyl Nuur Xasan Guutaale, xildhibaana ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo ay ka mid tahay xildhibaanad Farxiyo Falfaloos iyo saraakiil ciidan. madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed, xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalosh oo ka tirsan mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan, maamulka degmada Maxaas iyo waxgaradka gobolka ayaa xildhibaanka iyo ciidamada ku soo dhaweeyay degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. ciidamadan oo hogaaminaya xildhibaan Jacfar isla markaana wato hubka noocyadiisa kala duwan iyo gaadiidka gaashaamada ee dagaalka ayaa qayb ka qaadan doona halganka dalka looga xoreynayo argagixisada arxanka daran ee Al-Shabaab ee ka socda gobolka Hiiraan iyo qaybo ka mid ah gobolada kala duwan ee dalka, waxaana ciidamadan ay si gaar ah uga howlgali doonaan degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud iyo deegaano kale hoostaga degmadaasi oo argagixisada Al-Shabaab dhibaatada uga soo maleegaan shacbiga Soomaaliyeed. gudoomiyaha degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan Muumin Maxamed Xalane iyo nabadoon Cilmi Maxamed Barre oo ka mid ah waxgaradka gobolka ayaa xildhibaanka iyo ciidamadiisa ku soo dhaweeyay degmada Maxaas. sida runtii maanta maalmaha kale waa nooga duwan tahay, waana loo soo gurmaday haddii Galmudug tahay iyo haddii Galgaduud tahay iyo haddii gobolka Hiiraan tahay waana loo soo gurmaday. anagana qaybtaana ka qaadanayna dadkaas gacmo furan ku soo dhaweynayna. ma qiyaasi karo dadka subaxan tuulooyinka waa la iga soo weydiina waxa la leeyahay mudan madaxweyne nama kama yimiday intii soo maran waa ilaa shalay hadda inta ka dhaxay dalwa amal qof dad wax sida amal sidaas loo hoybina waa aragtaan hadda dadka macuusleyda oo jidadka isgoyshada idin jooga waxay ka tagaan meelahaas ka tagaan si isgoyshada si dadaal awgeed. marka soo dhaweynta kana soo dhaweynayna gacmo furan ugu soo dhaweynayna. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. xildhibaanada heer federaal, xildhibaanada Hirshabelle, madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle, mas'uuliyiinta kale ilaa ah Hirshabelle iyo Galgaduud, Galmudug dhammaan iyo odayaasha dhalinyarada saraakiisha dhammaan soo wada gurmatay wada timi haddana Maxaas timi. waa maalin ku soo dhaweynayna qalbi furan iyo niyad saliima. soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiinii, ku soo dhawaada dadkiinii, ku soo dhawaada deegaankiinii. gacmooda jiray wax ku gooyaan aan anagoo qalbiga iyo gacmaha iyo xuduudda meelba ka midaysan aan wax wada qabsano. xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Cali Sambalosh oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa xildhibaan Jacfar iyo ciidamada iyo xildhibaanada kale maamulka Galmudug ku soo dhaweeyay degmada Maxaas, waxaana uu sheegay in halgankii ka bilowday gobolka Hiiraan oo horseeday guul isla markaana inta dhiman iyadoo la iskaashanaya laga saari doono nabadgelyada Al-Shabaab. meeshaan looma imaanin dalxiis, howla loo yimaaday. dadka meeshaan isugu yimid waxaa laga rabaa 3 arrimood: in ay shabaab waddanka ka saaraan, god inay galaan, qof gurigeeda u noqonaysa waa inaysan jirin ilaa shabaab waddanka laga saaro. marka insha Allahu si Soomaalinimo ah loo wada shaqayn doona haddii la yiraahdo. shabaabkuna qoolo gooni uma haysta, kulligeen una haystaa. waxaan laga rabaa marka ninka Maxaas u dhashay inuu u diyaar garoobo inuu wabxay Ceelbuur xureeyo. ninka wabxay iyo Ceelbuur u dhashay inuu u diyaar garoobo inuu aadan yabaal iyo Moqokuri iyo Tardo iyo deegaanada Hiiraan intay ka dhameysay inuu xureeyo. sidii dhagxaantii annaga meel intaan imaanay shabaab meel aan ku sugayno ma jirto. meel kasta waa lagu wada geli doonaa, waa la isla geli doonaa. wax aan kala leenahay iyo wax noo kala soconaa haddii la yiraahdo ma jiraan. xildhibaan Maxamed Abuukar Jacfar oo horkacaya ciidamadani soo gaaray degmada Maxaas iyo gudoomiyaha degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud Korneyl Nuur Xasan Guutaale ayaa si wadajir ah uga mahad celiyay soo dhaweynta degmada Maxaas ay ugu sameeyeen madax maamul iyo shacabba, waxaana ay sheegeen inay ka qayb qaadan doonaan halganka dalka loogu xoreynayo argagixisada Al-Shabaab. Galmudug ama Hirshabelle xildhibaanka Sambalosh وصاحبكنا wax badan maarata aan isla shaqeynay maanta soo dhaweynta meeshaan la ula sameeyay iyo mid hore Beledweyne markaan imaanaynay labadaba waa ka mahad celinaynaa. waxaan rajaynaynaa insha Allah inaan ku soo dhaweyno soo dhaweynta midna ku xigta wuxuu ana war badan nooma furna waxaan oo balan ah Ceelbuur waan maasantii soo dhaweyntana waa ka mahad celinaynaa. tan kale
waxaan rajaynaynaa waraabaha markii hore labada dhigood ka qabateen markii dambana labada dhigood dabada uga dhigan hadda oo sararta ka garaacaya annaguna sararta kala ka garaaci doonaa insha Allah tacaala isbedel muuqda ayaan iman doona aad iyo aad baan idin salaamaya bulshada reer Maxaaseed tan reer Hirshabeelle gaar ahaan akhyaarta beesha Xawaadle ee deegaankan madaxweyne ku-xigeenka dowladda Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Hagar Dabageed ayaa sheegay in halgankii ka bilowday gobolka Hiiraan oo meel wanaagsan oo marayo asiguna dardaaran si wadajir ah ugu jeediyay bulshada iyo ciidamada dagaalka kula jira argagixisada al-shabaab shabaab waxaan go'aansanay in Soomaaliya iyo shabaab aan ogaanay Soomaaliya iyo shabaab in dalkan uu isla qaaday shabaab dawlad Soomaaliyeed ma ongola diinta islaamka ma ongola qof kasto islaam xuquuqdeeda ma ongola dhiigga islaamkana waa banaystay xaqoodana waa banaystay saqiir iyo kabiirna waa dile intaad maqneedeen waa idin sugayna in loo iimaanay diina waa ogeyn dadka inaad ka soo hormaray diin waa ogeyn waana ka soo hormarteen qoladii hadda idinka soo hormartana ayagana waa mahadsan yihiin waa u mahad celinaynaa adikoo kala waay meesha biyuhu nooga joogaan ay nooga wada joogaan walaalayaalow sanadkan waxaan rabnaa ama gobonnimo ama geeri dhimasho ilaaha lagu xukumay qof walbana waqti uu leeyahay sanadkan qof kasta oo islaamnimo sheeganaho annaga jirkaynu ku yaal meesha uu raba ha jooge ama gobonnimo ama geeri labada isla dhimanaysaan habarigooda isku dhaleen cadowga isla jiraana waa cadow dardaarankaaynu waa kaas imaatinka degmada Maxaas ciidamadan isugu jira kuwa dawladda iyo kuwa deegaanka isla markaana uu horkacayo xildhibaan Jacfar oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda Galmudug ayaa waxay ku soo beegmayaan xilli deegaano badan oo ka tirsan dalka ay ka socdaan howlgalla lagula dagaalamayo kooxaha arxanka daran ee argagixisada al-shabaab Khalid Xumaan Ismaaciil Kacse warbaahinta qaranka degmada Maxaas